بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله ومهد اسكاله سبحانه وتعالى شركا جرائد علماء waxay u qabteen iyagoo ka jawaabaya codsigii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu soo jeediyay in lagu kaalmeeyo dhibaatadii ka dhacday magaalada Beledweyne shacabkii dhibaatadaas ay soo gaadhay Soomaali meel ay joogtaba in ay shacabkaas ay u kaalmeeyaan sidoo kale codsigii isaguna uu soo jeediyay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo isaguna uu soo jeediyay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba in laga qayb qaato gurbadka loo gurmanayo dadka walaalaheena oo muslimiinta ah oo duufaantu ay kaga dhacday iyo daadadku magaalada Beledweyne ugu horeyn waxaan ka tacsiyeenaynaa dhibaatadii meesha ka dhacday dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay ha u dami dhaafo dadkii ay ka tageen iyo ehelkoodiina Ilaahay samir ha ka siiyo bedel khayr qabana Ilaahay ha ka siiyo subxaanahu wa ta'ala dadka dhaawaca iyo dadka dhiban oo daadkaas uu saameeyayna iyagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa kurbada haysa Ilaahay inuu ka qaado subxaanahu wa ta'ala baahida ay qabaan haday tahay mid cunto ah haday tahay mid dhar ah haday tahay mid deegaan ah iyo wixii kale baahi ay qabaanna Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu u daboolo subxaanahu wa ta'ala sidoo kale Ilaahay waxaan uga baryaynaa dhibaatadaas meesha ku soo noqotay Allah subxaanahu wa ta'ala dhibaatadaas inuu ka qaado xalkii dhibaatadaas looga hortagi lahaa hadda kadib inaysan dhicinna dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba iyo cidii wax qaban ka dhaba Ilaahay inuu waafajiyo subxaanahu wa ta'ala Allah inuu sahlo intaas kadib culimada Puntland anagoo kamid ah waxaanu go'aaminay oo la isla gartay in loo istaago dhibaatada halka ka dhacday dadka ay soo gaadhay in loo gurmado oo sidii awalba reer Puntland dhaqanka u ahayd markii Soomaali meel kasto ay joogto dhibaato ay ku dhacdaba inay u gurmadaan dhaqankii wanaagsanaa oo aynu ku khayray oo amni iyo nabdoonaan iyo dhaqaale iyo wanaagoona Ilaahayna ku siiyay subxaanahu wa ta'ala dhaqankii wanaagsanaa meeshii in laga wado gurmadkaasna hadda la bilaabo oo aad iyo aad dadka shacabka ay dawlad hadaynu nahay iyo shacab hadaynu nahay ganacsato rag iyo dumar dhammaan aynu ka qayb qaadano sida culimadu ay iclaamiyeen waxaa jiray lacag yar oo abaartii 2017 ka harsanayd oo culimadu akoonadii ay ku xireen oo ay la sugayeen maadaama shacabkii Soomaaliyeed lacagta ay u soo ururiyeen dhibaatadaas oo kale in lagu bixiyo waagiina abaartii Ilaahayna ka saaray abaar damana aan la arag culimadaas lacagta waxay la sugayeen wixii loogu talagalay hadiiba ay timaado tan haday timidna shir culimadu ay qaateen waxay isla garteen lacagtaas oo 164,000 ah in gundhig looga dhigo hantida loo ururinayo magaalada Beledweyne dadkii dhibaatada ay ku soo gaadhay ugu damayn waxaan leeyahay hawshaas aynu u gurmano Allah iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa ina faray الله وأطولها ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ما أنت وحل جوجا ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام لمن دبن أنت ويمادين نبي وجهي سو إسبدلي صلى الله عليه وسلم مركزنا بلال وفري إنه مساعدة كأدمه سلي سوي ماده dabadeed nabigu khudbad dheer jeediyay sallallahu alayhi wasallam khudbadaas ay kamid ahayd maanta qofkii waxay kara faliyay tasaddaq rajulun bidirhami bidinari min thawbi min sa'i burri min sa'i tamri halkaas ay joogta ila ugu damaynta nabigu yiri alayhi salatu wasalaam walaw bishigi tamra maanta hal baxo qofkii heli kara diinaarkiisa kii heli kara hal diinaar dirhankii heli kara marakii heli kara saac bur ah ama maxaan ku qamadi ah ama timira kii heli kara ilaa nabigu gaarsiiyay alayhi salatu wasalaam xabad timira jeexed qofkii heli kara hal baxo maanta maalintaas ay taagan tahay qof walbo ina kamid ah rag iyo dumar kii kun heli kara 2,000 kii heli kara ka badan kii heli kara $1 kii heli kara hawshaas laga qayb qaato gaar ahaan shirkadaha hantida Ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'ala oo walba gurmadka hormoodka ka ahaan jiray iyagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale iyaguna sidoo kale gurmadkiina hormood ugu noqdaan wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la baxaya akoonada boorka ka muuqda
in ama shaashada ka muuqanaya in dhaqaalaha lagu bixiyo dibad iyo gudaba hadday tahay akoonada sahalka ah iyo hadday tahay akoonada kale akoonada ayaa lagu soo diraya haddii ilahay idmo wabillahi tawfiiq محمد وصحبه أجمعين وبعد شيخ محمود ayaa dhameeyay mowduucan istaaga halka aan taaganahay iyo kongareeska aan qabanayno waxa weeye gurmadka walaalaha Hiiraan iyo kuwa kale oo fatahaadu ay gaadhay dhamaantood inaan ka qayb galnay haddaan nahay culimada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Puntland gaar ahaan culimada magaalada Garowe waxaan rajaynaynaa insha Allah taala qayladanta sheekhu uu sheegay in siday u tahay loo qaato dadweynaha ilaahay wax siiyay reer Puntland haddii $1 wada iska inuu bixiyo oo koomada ku rido wax weyn bay noqonaysaa walaalana wax weyn bay u taraysaa waa rajaynaynaa dhammaanteen yaraan mid weyn iyo mid yar $1 $2 haddii lagu rido waxay noqonaysaa malaayiin lacag ay noqonaysaa walaalaha dhibaataysan oo maanta dibadda yaala oo guryahoodii biyuhu ay galeen oo dhaxan iyo kaneeco yaani ku jira inaan maanta u gurmano haddii walaalnimadii weeye مثل المؤمن في تراحم وتوديهم يعني waxa weeye muuminka يعني iyo walaalka kale walaalkiisu weeye المؤمن للمؤمن كالبنيان بالنبي عليه الصلاة والسلام haddii aanan maanta gurman hadda waxa weeye arintaasi waa la qabsanaya oo waxa weeye cid kale wax laga wadiinay ma jiraan Soomaaliya hadday beel joogtaan hadday gurmato gurmad kale uma baahna ayaa isku filan si marka la yeeri jiray hadday tahay duufaanihii dhici jiray inta koor hadday tahay tii ka dhacday halkan oo waxa weeye magaca hayaan lahayd iyada Soomaaliya isku gurmatay ayada wax badan soo qabatay wixii ay bixiyeen wax macna ma ahayn ayada dadkii lagu xooleeyay ayada dadkii lagu dajiyay ayada baaqi wax lagu baray haddii lacagta lagu bilaabayo maanta gurmad degdeg ah oo dhigu joojin laga bilaayo oo bilow laga dhigayo waa lacagtii ka soo hadhay waxa weeye abaartii ka dhacday 2017 gobolkan walaayada Puntland abaartii ka dhacday weey oo culimadu ay meel adag ku haysay lana sugaysay meesha meel lamid ah maadaama ay amaana ahayd oo loogu dhiibay dhibaato loogu dhiibay ayaa waxa ilaahay maanta ilaahay mahadiisa inay noqoto gurmadkii ugu horeeyay oo ka baxa يعني waxa dawlad gobolka Puntland aan rajaynayno si degdeg ah walaalaha inuu gaadho aan rajaynayno inay ka faa'iideystaan walaalaha kalena ku dadaan Soomaaliya meel ay joogto hadday tahay Soomaaliland hadday tahay Soomaaliya kale hadday tahay gobol isteediyada kale maanta waxaan rabnaa walaalaha inaan gurmino cidna inaan ku halayn dhamaanteen insha Allah taala culimada baaqeeda insha Allah waday joogan gobolka Nugaal iyo hadday bari joogan ayaa ku filan lacagta waxaan doonaynaa insha Allah taala laga bilaabo maanta oo bisha 30 ay tahay bisha islaamka ay tahay maalintii labaad waxaan rajaynayaa usbuuc arintaas waxa weyn lagu soo gabagabeeyo waxyaalo badan baa la sheegayaa duufaana ka soo socda Cumaan waa la sheegayaa waxay noqon doonaa Ilaah baa yaqaan Ilaah baan soo weydiin doonaa inuu dhinac naga mariyo laakiin tan haddaan ka jawaabno taasna Ilaahay waxaan ka marinaya marka si degdeg ah u jawaabna insha Allah taala wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in